Soomaaliyey toosoo kaca waad qarribanteedhe. Soo dhawaada walaalahayga Soomaalida meel kasta aad joogtaan. Hala soo dhawaado. Hala soo galay. Ma ku jira caawa shucuurtayda aad bay u kacsan tahay wallaahi billaahi caawa aad bay u kacsan tahay qofka u soo horeeyo insha Allah waad ku jirtaa isoo qor. Soo dhawaada bal. malay maqlaa hello ma ku jira TVGWL hello assalaamu calaykum wacalaykum assalaam walaalkay Maxamed Xasan soo dhawo walaalkii soo dhawo xalane soo dhawo adigana walaal wacalaykum assalaam guuleed soo wada dhawaada walaalahayga Soomaalida meel kasta joogtaan hala soo dhawaado Maxamed soo dhawo madaxweynaha soo dhawo baan ku leeyahay walaalkay adiguna maasha Allah soo wada dhawaada waxaan aan leeyahay cabdi soo dhawo walaal cabdi xakiin soo dhawo deeq dhammaantiinba soo dhawaada Xuseen Axmed soo dhawo walaalo kadiib sorry magacagaas ay ka khaldan soo dhawo ma karayo Maxamed Axmed soo dhawo adigana dhammaantiinba soo wada dhawaada ummadda Soomaalida meel kasta aad joogtaanba waxay iga haysataa Soomaaliyey kaca toosa waad qarribanteene والله بالله شعورت aad bay u kacsan tahay waxa daawateen xalay iyo caawa iyo habeen hore waxa ku jira khadka dad walaalaheen oo dhalinyarta wadanka u soo kacday oo maanta wuxuu qaban lahayd oo maxaa la leeyahay magafa u dilay nin carab ah soo qaraacayo waa daawateen baan u maleynaya Soomaa caaway Soomaalidii qabiilka ku faanaysay caaway Soomaalidii lahayd anayna hebela anayna quraca anayna jilaba anayna meydaaga caaway Soomaalidii xagay ka baxda maxay Soomaalida maanta wuxuu ku qaban waday rageeda xidhan oo jeelasha ka soo hadlaya aaway madaxweynayaashii Soomaaliya aaway madaxweynayaashii maxaa la dhahaa Somaliland aaway madaxweynayaashii maxaa la dhahaa isha maamul goboleedada dhan meeya dawladii wadanka ka dhashay madaxweynayaashii madaxdii noo tirinayay meeday shacabkii meey sharaftii ciisigii karaamada lahaa oo shafka qaraacayo Facebookyada hadayna leef soo galin qoraalka ku soo qoriyay anayna hebel taajira mee ninkii laandheeraha iyo qabiilka dheer ku faanayay aaway maxaa ragiina maanta ku jira sheelasha aad uga soo guri laadihiin way sheegi kartaan imisaan aan leef aan ka aragnay oo jiilal ku dhex jira oo inta caban iyo barcabada iyo balaayo lagu haystaa imisaan maanta lagu qaraacaya Liibiya hooyan daawade caawa hooyo Soomaalida Liibiya saa lagu qaraacayo shub inay yar 18 jir oo habeenkii horeeyay habeen hore aan soo dhignay khadka wada aragteen please walaalahayga Soomaaliyeed runta marka la isku sheego runta waxaa la runta ninka ragga baali way ka naxisaa laakiin kawkaga ma siiso waa run han isku sheegno war aaway dadkii Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan Soomaaliyeed adduun weynaha caalamka wax ku dhacma qabiil inaga basawiyaan wallahi wabillahi tallahi inaga ku dhaqana wadan waxaan joognaa maxaa la dhahay ajnabi aan ku nahay wadan gaalan joognaa ma aragteen qabiil iyo waxba sidana cadaan saysta ma aragteen no waxay ku dhaqmaysaa cadaanka waad ka dambeynaysaa waxaad kula dhaqmaysaa wuxuu ku dhaqmayo maanta hadii lagu dhaho kala shaqada aad rurta shaqaad leedahay iskuul baad leedahay teamka waad ilaalinaysaa wad ordaysaa war ilaali dalkaaga hooyo ilaasho dadkaaga wuxuu qabo qabiil wax ma taro qabiil waa laga tagay ma fahmaysan wallahi maanta anaga hadaan gabooyanahay qabiil waaban soo tirtirnay anaga maba qaadanayna qabiil waa in qabiil doon hoos ha u dhaco qabiilku aaway Soomaalida shafka qaraacisay warkaca Soomaaliyey kaca waad qarribateena kaca adduunweynaha caalamka oo dhan bayna arka rageena Liibiya iyo maxaa la dhahaa South Africa iyo jeelal bay ku urayaan waraan gacanta isqabsano aan ka hor socono qabiil hal iska daayo war qabiil hal iska daayo war waxa la qabsado war madaxda Soomaaliyeed war farmaajo haduu yahay war gaas haduu yahay war siilaanya haduu yahay war Ismaaciil Umar Goole haduu yahay war haduu yahay maxaa la dhahaa ii sheeg cabdi walba cabdi hebel trejkiga sorry madaxweynaha magaciisa labaad ba ii gooyay marka maxaa la magaciisa saddexan ba ii gooyay marka waxaan leeyahay shanta Soomaaliyeed meel kasta joogtaan inagoo shantiini gacmaha is haysta waa inaad dadkeena xu qabataan war meesha ninkii soo maray baa ka xumaanaya ninkii masaxaraha soo maray amba magafa xanuunkiisa soo dhadhamiyay ninkaas ogaanaya waxay tahay xanuunka ani waan soo maray xamdi ahaan meen ilaahi diyaarad iyo raaxan ku yimid والله وبالله والله إن إلهي قنا الله قدرته قفنا وجه كمله كهذا إذا سوى عبي كهذا إذا أم بيقول حم قرال أم فيسبوك يقول حم ومالك يقول حم بيني شيء جماية والله وبالله إن إلهي قنا الله قدرته كهذا إذا وحن صامر يمر لليه قد عاد كلوش هاي يا محل هاي وبش شناب وقو كلوشه الصحراء فوستوين كبيو قرحيا نينكي صامري نينكي قرنيا على ولا ليك هذه
الله ولا ليك الله كو كاتشي ما يجا تكانيك هدو عبية أيان صومري ميل يرب الرفاد يسرعي ضرحومن كسو قلنا ورمياد إلا ودن انتي لا سعودتي انتي قرنسي انتان سلا soo jabnay alla ilo shadawaa bali ma umulba miyaad ilowdeen rafaadkan soo marnay war u kaca dadka maanta inaga dambeeyo tan shalay soo marnay isku jiraan iyagana ha loo kaco waxa loo guro ilaahay baa inaga soo saaray teeni wax u laabnay imsa nin baa dhintay imsa nin baad garanaysaa imsa dumar anaasna 19 qof ka dhintay gaariga aan saarnaa anigu hal dumar ku jirtay 18 kale wada rag dhalinyaro ay ahaayeen 20 kan gaadhin maxaa looga danqan waayay dhibaatada waxa wax tahriibinaya oo wax wada waa niman waa Soomaali hadda u fiirsada Soomaali Itoobiya Soomaali waa kaasoo kaxaynaysa Suudaan Soomaali waa kaasoo lagu keenaya iyaga ku soo dhigay Suudaan baa lagu soo dhigay Suudaan tin Chad ku soo dhigay Chadki Libyaan buu ku soo dhigay Libyaanka waa laba ah waa mid qaar aan diintaba haysan oo masiixi baan hayo kuwa kale aqal baa lagu xiranaya inaan ka qurux badan tahayna waa la kaxaysanaya hada lagama gelinayo intuu ilaahay ka badbaadiyay mooyana ragana waa la dilaya waa la gumaysanaya injirta galaysa marya la'aan bi ku joogan xiniyaha galbeed laga qabanaya dumarka naasaa laga dhijinaya maxaa la dhahaa waayir dab ah wallahi inaan been idin sheegin oo billahi been idin sheegin sida iyo rafaad waan soo marna alxamdulillahi rabbil caalamiin intii way taqaanta qurbahan isla soo galnay waan ognahay waa la is yaqaana rafaadka iyo sida iyo durxumada iyo gaajada iyo duliga iyo injirta iyo qurunkayna soo gashay waa la ogyahay war ma markaad baddi ka soo talaawdeen badilowdeen dadkii naga dambeeyay warsoynigi shalay toole aan maxaa la dhahay Liibiya markan Liibiya soo marnay anu xabsi ma gelin alxamdulillah dad baa xabsi soo galay Liibiya xabsiga qofka markuu soo galo injirta way gashaan injirta baasha injirta la dhaho wadankeeni waaba waxba kama ahayn been wadankan sharaf iyo cisiyo karaamay ku leedahay Liibiya dhexdeeda hadilin baa lagu dhahayaa ayada wadaniya markuu dhaaq inanka amba gabadha iska dilin jirta ninka carabka ku dul taagan yahay waa wadani buu ku dhahayaa injirta hadilin hadda bal eeg injir baa ka qiimo weyn adna qabiil baad igu faanaysaa injir baa ka qiimo weyn wallahi markuu hadil buu ku dhahayaa hadirin wadankeeda adaa ugu yimid waa wadani baashan waa wadani gormad wadani noqona wadankaaga adigana wax u qabsanaysa ka isir baad maalin kasta Soomaali haysatay qabiil isku haysatay gorma la midoobaya gorma gacanta la isqabsanaya gorma Soomaaliya oo dadkeena maanta maxaa la dhahay sida asan loo soo aruurinaya oo meel isku keenaya xabsiidii ku jiraan ku ureen South Africa lagu gubaya waad aragteen inta kale aan la soo bandhigin baa ka daran ma gafaha maalin kasta dadka saas u qaraaca hamoodina naxariis la'aan kamarad buuna aqoon soo duubay wuxuu arkay nimanka Soomaalida dhahaya duub Soomaalida soo caawinaysa kale oo qurbaha joogtay maxaa dhahaa dhig Facebook-yada la soo dhigo ila Soomaali baa meesha ku jirto ko maxaa la dhahay ma khalas waa la yaqaan ma khalas Soomaali baa qabiil kasta wale markaas uu qabiilku ku kaxaynaya adiga hebel baad ka timid ha in heblaaya raac wala garanaya waxa loo kala bixiyay saddex magac dadka Liibiya markay soo galaan waa reer baaquli iyo reer Michido iyo reer maxaa la dhahaa Ishak Farataag reer maxaa la dhahaa reer xamarka reer baaquli ba u bixiyano madiimaday baaquli dhahan reer Farataagna reer Somaliland weeyaan indhaha Farataag ka galiyaan bali reer Michidana waa reer maxaa la dhahaa Ishak reer barigo waa intii barigaas oo dhan waa Michido waxa Michido bay ku dhajiyeen iyaguna marka saddex magac oo Liibiya loola baxayba Michido tahay ha doontan raac Farataag baa tahay doontan raac meel qabiilku meel kasta wada la socda ma fahmaysan marka walaalahayga Soomaaliyeed oo biliis aan saawino waraan saawino waraan waxaan arkay dad badan oo isla socono inta su'aalka fidada ka soo xidhan isoo war ii gilgiliyo meelaha soo dhigay war soo nigi isla socono Allah maanta muddo bas aan noqota waa markan cusbay community-ga iga masaxina soo tariibay dadka iyo moodina waxa la iska dhigay in biri hore wadanka soo galay war waa la is ogyahay waan soo wada tahriibno waan soo rafaadna tiibay ku jiraan walaaladeena han ka saarno halka dollar baa xu diray labada dollar baa xu diray 10 dollar baa xu taraya biliis aan ka saarnayn leena waan soo wada marno waan soo rafaadnay Yurub sawir yar waxa qaar baa waxay soo qoriyeen maxaa haya maxay la soo tahriibayaan wadan nabad haystaan Soomaaliland waa nabad ay nimanka qaar soo qoreen nabad way yihiin wadankii waa nabad waa la ogyahay laakiin maxaa dhalinyartii soo hikicinaya waxa soo hikicinaya in yaro maanta reerkooda wax haysto lacag haysto shal iskuulka la dhiganaya soo tahriibaya hal bilaa laga bixinaya lacagtii ilaahay doonta uu soo badbaadinaya Talyaanigu kaliya Jarmal biis kaliya isla markiiba kaamku meel yar qurux badan isku soo waraya sawirka soo dhigay sawirkii bikii kalaan arkay oo kacaya ma joogtid buudhaaya waa qolof muran oo Hargeysa Burciyo Muqdisho Kalkaciyo Garowe iyo Kismaayo dhaxmaraya weeyaan laakiin dunyadiisa wixiisa waxa jirta qurbaha jirta sawirkan marba daawanaya hebel badtagiya bal arag buudhaaya waa sawirada waxa dadka soo dilay waa sawirada iyo leef xumaan imika barana xaqan soo fadhiisanayna dadkii
labadaas dadka dilay run markaan isku sheegno walaalayaal aan saxaawino aan dadkeena xtarno oo qabiilka inaga daaya oo qabiilka dumiya qabiilka intaad aruursaan gebigeeda dumiya oo meel naga shuba ustaga waa la iska dhaqa ustaga hadii la iska dhaqa faro nadiif ay ku noqdaan han iska dhaqno qabiilka run aan isku sheegno waxa qabiilka wadana waa la ogaaday wallahi billahi taala waa inta qurbaha joogta waa fadhi ku dirir midhan weyn halkaas soo fadhiisanayo kasoo talinaya uu ku dhahaya whatsapp yar xumo kii sameeyna balaayo noo soo sameeyay whatsapp yar xumo laga ayaa group la isku shubanaya halkaas balaayo laga akhrinaya iyo Twitter wax la dhihiyo maxaa la dhaano ma isticmaalay iyo Facebook iyo waxa maanta in dadkeena kala dilay waa social yaa naga jara waxan bariga hore waxaan lama aqoon telefoon weyn oo tiri iyo niicla la iska wadan jiray arsirgan buu jirnay sawir la arkay dadka soo qaxinaya war sidan han isku dhaano war dadkeena waxaan u qabano war dadkeena wax tarna war Soomaaliya midooda war mid hala noqdo waxay tahay midoobine gobolkiina kala jooga bal caloosha la isku xaadnaado oo qabiilkana laga daayo oo kaas waarinayo sadaqa qofkii la baxay qabiil bay sadaqadii hadda gelisa biliis baleeg sadaqadii qabiil bay gelisa gabadhan doolan soo dhigno boqolaal baa lagu qano soo galo way ka tahay waan aragnay gabadhan reer Puntland ay ka tahay war ilaahay ka cabsada war sadaqadaada ilaahay hortii ula bax bil barakeysan ma ku jirna bil rabadaan ku jirna walaalaha caaw waxaan arkay caaw hooyo ooyeyso qoxoonta ku jirtay inanteedii 15 jir la leeyahay kawaanka saaranta waxa la kawaanka saaranta waa nin Soomaaliyeed waa magafuhu ninka carabka ah ma is arkaysan Liibiya marka soo martaan ma is arkaysan lacagta markuu ka waayo unba ku imanaya goor barqo ku imanaya dumarkana uu kaxaynaya qolbu ku xidhaya qolkaas lagu yiri cadaabiya qol kulul soo wacaya igar hal noqo qofka soo wacaya wala waxaan ku jira leef marka ragana dumarkana qol kulul buu ku xidha maxaa la dhahaayay ragana wuxuu sameeyaa intuu maryaha ka bixiyo uu jirka saliid u mariyo ayuu shaabuug la dhaca shaabuuga subitoorka waa la fahmaya ninkii fahmiya faraska lagu kaxayn jiray ayuu rag la dhaca beerka wuxuu ka saaraa dhagax ayuu dhashta ka saaraa madaxa haraatida aan cid ka naxan oo cid ku tirin maxaa ku soo watay maxaad u soo tahriibisay baa ku qabanaysaa la maxaad wadankaaga u joog weydaa ku qabanaysaa markaasaad ogaanaysaa aad soo tahriibtid oo Liibiya gacanta lagu soo dhigo inaad dadkaaga inaad dal iyo dal leedahay markaasaad ogaanaysaa alla wadankaaga la dhidi macaanad maxaan uga yimid meena laygu dinayn laygu gumaysanay maxaan uga yimid baa ku qabanaysaa run han isku sheegno والراحة كتمد يربان مالينيا كاغن قبيل كوضا ولا راحة كتمد ولا لا يالا وإلهي كعبصدا ودب اسكو نقلا ودد كينا ما انت عاوننا وإلمها ما انت حرحران هنا عاوننا وها كعنا وها مظهراتنا وحد عربتا وحا سمينا سنت فيديو ذا قادنا عالن كهان تصنا وهان كم مظهراتنا وان عيل هي عرب شاركي اخبي هيسا صبح مكسر روف فعلابا وحبيب يجيسن عرب ما انا اركا كري ادونك عرب بابا نعيبين marka aad baan inii salaamay walaalahayga Soomaaliyeed hadalkan nagu badiyay caaw shucuurteeda ka xasanad wallahi madaxay xanuunaya in hooyo dhan amba aabo dhan oo xanuunaya ilmo yar 15 jir amba 18 jir oo dhibaataysan oo rafaadsan oo maxaa la dhahaayay soo tahriibay hooyo igda alaabo waleebal lacagiisa turshug lacagta bixi lagu dilay ka waran walaal حنون ويا والله حنون واد مهتسنتين والله لي القبيل وكبرتayna dhigay qaran baa wax tara ayaan qabiil inaga daaya imikadan bad mila qabiilkii qoto ugu wadaan meesha qoraal badan baan ka arkaa inaga joojiyo ilaahay idinkiisa nidankayga ka ahayn waa inaan gacmaas qabsana waa inaan kor u kacnaa waxa weeye marba heer la gaadho heer han gaadhno war heer han gaadhno waan gacmaas qabsano kana Soomaaliland ay kana Puntland iyo kana Muqdisho ay kana Hibilaayo waxa aad isku ximinaysaa naga joojiya Soomaali bas كاكليان كو حسابتم ولا magaca Soomaali wala wada leeyahay qof kasta uu leeyahay qabiil kasta aado wala si kala baxbaxaya marka taasan anigu inaga codsanaya dawlad kasta barteeda ha fadhido Soomaaliland ilaahay ha barkeeyo ilaahay khayr ha siiyo barteeda ha fadhido reer maxaa la dhahaa Puntland sidoo kale ilaahay khayr ha siiyo barteeda ha fadhiyaan maxaa la dhahaa Muqdisho sidoo kale laakiin aan isku celal fiidiyowaano qabiilkan joojino waliba dadka qurbaha jooga dadka Afrika jooga waa dad wanaagsan والله dadka Afrika jooga boqolkiiba boqol inta madaxdiyo maxaa la dhahaa inta yar iska wada teemoyaan wada wanaagsan dadka fadhi ku dirirka ah waa dadka qurbaha jooga oo leefka maalin kasta qabiil iyo balaayo xun wax noo soo galay ana caaw hadan qabiil caaylaha boqol sheer bad siin lahaydeen wallahi bad siin lahaydeen fiifa gabooyadi la dhigi lahaydeen laakiin waxaan ka hadlayaa qabiilka naga daaya Soomaaliya run bani sheegna runtaan qaadano runta wax ka wanaagsan wala wallahi runta ninka raga way kaga naxisa kawka kama siiso aniga waan nawaaninaya walaashin banahay walaashin xamdi kalgacal waaye waxaan u soo galay qadkaas aniga maanta ma garanaysa ilaahay darti u soomana oo salaadeeda iska tukaday hooyanahay waxaan ka xumaaday dadka 5 qofan daawaday waa 5 xaga lagu arkay dumar la dilo waa dadkeeni aan dili weynay Soomaalida dilay arkay dadkeeni aan dili weynaan dhadhoobaynay aan hooyadii iyo aabihiiseen u soo qaracin inta lugaha laga xixidhay la qaraacayo ka war أنا وان صومرين ده هيجانا صو صار بين ما ده هيدا بس وقرية وابين والله وبالله بين ما أنا صومري
waanan garanaya ina dhihi maayo daanu sano joogaayo waxaan ku riyaa waaweyn kan hoo Yurub intaas joogna ma joogo 5 sano joogaa meeshaan aan soo maray xanuun iyo rafaad baan ku soo maray waanan garanaya kaadadeedana soo cabay haddaad rumaysanaysaan YouTube kana ku jiraan oo ka shaqeynaya ma fahmaysan dhibaato iyo silic iyo rafaad badda 3 habeen baad ku jiraysaa 3 habeen ayaa badda ku jiraysaa oo la isku kaajiyo la isku xaarayo la isku cunayo marka aad baan idin salaamaya walaalahayga Soomaalida meel kasta joogtaan wixii wanaagsan walaalka gaarsi share gare waanada waa inta soo mid meelaha qabiil wada Ilaahay ka masaxay si gaarsi walaalada aad baan idin salaamaya dhamaantiinba kale iyo laab waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo waxaan idinkaga tagayaa jannada ay noo balana han iskaalweyno dadkeena tarno qabiil hayna laga tirtiro intii xun iyo intii sanna Ilaahay ha soo wada hadiyay dhamaanteedba kale iyo laab aad baan idin jecelnahay page-kayga waxaan jecelnahay markasta annaga inaan wax fiican inii soo gelino page-kana waa page-kii ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto wixii intii af Soomaaliga ku hadasha ayaa iska le page-kan saasana inii sheegana wixii xun anaga iska qabanayna hadhow tira community-ga markaan akhrisano marka aad baan idin salaaminaa walaalahayga Soomaalida rag iyo dumar FIFA baan leeyahay Soomaali meel ay joogto hala caawiyana assalaamu calaykum waraxmatullaahi